السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وأنا إذن سلامي دمان أصحاب تقيمها بدن كحيران جنال كينا فرحي فيلسون أوفيشيال. waxaan idin leeyahay soo dhawaada kuna soo dhawaada channelkeena. maanta waxaan idin la wadaagi doonaa habka aan u sameeyay Fisherboard-kayga 2025. Fisherboard-ka waa qalab cajaa'ib ah oo ka caawinaya in aad si muuqaal ah ugu sawirto yoolalkaaga oo aad diiradda saarto waxa aad rabto inaad gaarto sanadka cusub. aniga waxaan diiradda saarayaa yoolalkayga waxbarasho, caafimaad iyo horumarinta shakhsiyadeed. Hadaba aan bilowno. Sababta aan u sameynayo Fisherboard-ka waxay tahay inaan doonayo inaan si cad u arko yoolalkayga aan hiigsanayo sanadkani, oo aan hubiyo in aan diiradda saarayo waxyaabaha mudnaanta leh. waxaad u baahan tahay markaad sameynayso Fisherboard-ka kartoon weyn oo cad ama midab leh, qalimaan midablo leh, mase haddii kaleento waxaad sameyn kartaa print casting aad kasoo degsan kartaa. sawir ka turjumaya yoolalkaaga waxaad kasoo daabacan kartaa online ama kasoo jaran kartaa majallado, qoraallo dhiirigelin ah ama stickers, xikmadooyin qurux badan iyo waxyaabo farshaxan ah. qalabka aan isticmaalayo waa kuwa igu caawinaya in aan si muuqaal ah ugu qeexo wax kasta oo aan doonayo in aan gaadho sanadka soo socda hadduu Eebbaweyne inoo idmo. meeshan waxaa iiga buuxa kuwo badan sida caafimaadka, horumarinta shakhsiyadeed, horumarinta ganacsigayga, horumarinta waxbarashadayda. haddii aan mid u dul istaago hadduu Eebbaweyne inoo idmo. waxbarashada waa in aad heshaa sawiro ku saabsan waxbarashada iyo qalinjibinta, sidoo kale buugaagta waxbarashada, sidoo kale qoraallo dhiirigelin ah sida baro oo kobci noloshaada, guuleyso, iyo sidoo kale in aad sharaxdo yoolalkaaga waxbarasho. qaybta ganacsiga waxay inoo tahay qaybta labaad. marka hore waa in aad samaysataa sawiro ka turjumaya waxa aad ganacsigaagu u yahay. hadda aniga oo kale beeraha iyo suuqgeynta fruitka mase vegetable-ka. qaybta caafimaadka oo qaybteeni saddexaad ah, sawiro cunto caafimaad leh, jimicsi iyo nolol firfircoon. erayo dhiirigelin ah sida caafimaadkaaga waa hantidaada ee ku dadaal. sidoo kale horumarinta shakhsiyadeed. in aan barto sharqaanka. 2 in aad barto dharka dunta sida loo sameeyo. 3 waxaa ii ah in aan barto cunooyinka mamacaanka, cunooyinka kala duwan. sidoo kale in aan barto sida loo make-up gareeyo make-up-ka. haddaba qoraal sii raacay, haddii aad ku riyooto waad gaari kartaa hadafkaaga. haddaba ku darso xusuus ku farxad gelisa. sidoo kale himiladayda waxbarashada waxay bilaabatay markii aan fahmay sidii aqoontu u tahay furaha guusha. waxaan rajeynayaa inaan noqdo qof ka caawiya bulshada ku hareeraysan baahiyaadka ay qabaan. ganacsiga beeraha waxa uu ii yahay fursad aan ku taageerayo beeraleyda oo aan siin doono suuq weyn ay ku iibgeystaan ganacsigooda. haddaba daawade, ugu dambeyn waa kan Fisherboard-kayga dhamaystirka. aad ayaan ugu faraxsanahay sida uu iigu soo baxay. waxaan idin xasuusinayaa in aad ku sii socotaan jidka aad rabo oo aan ka shaqeeyo riyooyinkayga insha Allah. idinkana waxaan kugu dhiirigelinayaa in aad samaysataan Fisherboard-ka ku gaar ah maxaad hiigsanaysaa sanadkan. ku qor qaybta hoose oo aad isku dhiirigelinaysa. haddii aad jeceshahay fiidiyogan ha ilaawin in aad like saarto, subscribe dhahdo oo la wadaagto asxaabtaada. ilaa fiidiyowga dambe ku xiga waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo amaano Allah. haddaba iga hooyo dhiirigelintan. halka aad u socoto waa muhiim, laakiin safarka aad ku joogto ayaa kasii qiimo badan. haddii aad ku riyooto waxaad u dhowdahay inaad gaarto
yoolalka la qorayo waa yoolalka la gaari og yahay. Haddaba daawade, hadda waa waqtiga aad samaysan lahayd Fisher boardkaaga kuu gaarka ah, aad arki lahayd sida uu kuugu soo baxo yoolalkaaga gaarka kuu ah. Intaasi waxaa inoogu eg fiidiyoogeenii quruxda badnaa idinkula soo wadaagaynay sidee ku samaysan kartaa Fisher boardka. Intaa mid aynu ku kulmi doono, waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo amaano Allah. Isma dhaafno, haynaga hilmaamina share-ta, comment-iga, subscribe-ka. Inta waxay inoo yihiin dhiirigelin. Hoos inoogu reeb wixii fikirkaaga ah oo ku aadan Fisher boardkaaga. Insha Allah. Salaamu calaykum.